Ku soo dhowow taariikhda hiddo-sidaha. Dukumentigan waxa aynu ku ogaan doonaa siraha qarsoon ee hiddo-sidaha DNA-da reer Jabuuti, iyadoo la raacayo raadadka hore ee guuritaanka aadanaha, isdhaafsiga dhaqanka, iyo isku milanka hiddo-sidayaasha kumanaan sano ah. Laga soo bilaabo waddooyinkii cusbada ilaa raadkii gumaysiga, safarkan wakhti dheer wuxuu muujin doonaa sida hiddo-sidayaasha Jabuuti u xambaarsan yihiin taariikhda bini'aadamka ee hodanka ah ee cakiran. Jabuuti, waddan yar oo ku yaalla u dhexeeya Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya, waxa uu ku yaal meel u dhow marinadii ugu horeeyey ee guuritaanka aadanaha, dooxada Riftka weyn. Inkasta oo dhulka Jabuuti maanta yahay mid qalalan oo qoraxdu la kululaatay, haddana waxa uu qarinayaa xusuusta hiddo-sidaha ee ugu qoto dheer dhulka. Saynisyahanadu markay doonayaan inay fahmaan faafitaanka ugu horreeyey ee bani'aadamka, marar badan waxay u jeestaan gobolkaas. Sannadihii u dambeeyey, DNA laga soo saaray dadkii hore iyo kuwa nool ee Jabuuti ayaa bilaabay inuu muujiyo siraha qarsoon ee kumanaan sano ka hor dhacay. Dhulkan dhuuban ee u eg in la iska ilaaway hiddo-sida ahaan wuxuu noqonayaa xarun muhiim ah oo ku taal meelaha laga baxay Afrika. Markii bani'aadamka uu ka faafayay gudaha Afrika, qaar waxay u dhaqaaqeen dhanka Masar iyo Badda Dhexe, halka qaar kalena ay u leexdeen dhanka bari, iyagoo raacaya dooxooyinka iyo jeexjeexyada dhulka ee ka taliya Geeska Afrika. Jabuuti, oo u dhow marinbiyoodka Baab el Mandeb iyo Badda Cas, waxay noqotay meel dabiici ah oo xannibaysa socodkii hore ee bini'aadamka. Baadhitaanno qadiimi ah oo laga sameeyey harada asal iyo bannaanka goba ayaa muujiyey qalabyo la xidhiira waayihii hore, Middle Stone Age. Inkasta oo qalabkan aan laga helin DNA, haddana waxay caddaynayaan dhaqdhaqaaq bini'aadmi oo hore. Markaasay hiddo-sidayaasha u jeesteen dadka Jabuuti maanta ku nool, gaar ahaan beelaha xoolo dhaqatada ah ama kuwa godoonsan, si ay u helaan raadad DNA ah oo laga yaabo inay dib u raacaan ilaa 50,000 sano ama ka badan. Mid ka mid ah waxyaabaha la yaabka leh ee la helay waa jiritaanka laamo aad u kala fog oo ka mid ah mitochondrial DNA, taas oo laga dhaxlo hooyada oo keliya, waxayna si fiican u kaydisaa raadadka guuritaanadii hore iyo kala bixitaankii bulshooyinka. Jabuuti, haplogroup mitochondrial ah oo naadir ah oo la yidhaahdo L6 ayaa laga helay in yar oo dad ah. Waa farac aad u daweyn oo la aaminsan yahay inuu asal ahaan ka yimid Geeska Afrika. Jiritaankiisa, xitaa haddii uu yar yahay, wuxuu muujinayaa in dhulkan si joogto ah u degganaayeen dad bini'aadam ah oo casri ah kumanaan sano. Waxa ka sii yaab badan ayaa ah in cilmi-baadhisyo kale ay muujinayaan xog la mid ah oo ku jirta kromosoomyada Y, kuwaasoo laga dhaxlo aabbaha. Halkaasna waxaa laga helay faracyo rag ah oo xambaarsan taariikh aad u qadiimi ah, oo muujinaya raadad ah in rag Afrikaan ah ay halkaas degganaayeen ka hor inta uusan soo faragelin dhiigga Yureeshiyaanka. Marka labadan dhinac, midka hooyada iyo midka aabbaha, la isku geeyo, cilmi-baarayaashu waxay si tartiib tartiib ah isugu sawirayaan sawir buuxa oo muujinaya muuqaalka guuritaanka iyo sidoo kale joogtaynta bulshada. Sidaas darteed, dadka qaar ee maanta ku nool Jabuuti waxay si toos ah u noqon karaan farcankii ugu horreeyey ee bini'aadam oo ka baxay Afrika. Xogaha deegaanka waxay sidoo kale taageerayaan tarjumaadan. Xilligii dambe ee Balaystasiin, muddadii u dhaxaysay qiyaastii 1.8 milyan iyo 10,000 oo sano ka hor, oo ay bini'aadamka casriga ahi markii ugu horraysay soo shaac baxeen, iyo waqooyiga dhulbareedka ay la kulmeen barafka. Isbedbeddelka cimilo ee dhaxan iyo roobab isku bedbedelayay waxay si toos ah u saameeyeen dhaqdhaqaaqa bini'aadamka. Meesha ay Jabuuti ku taallo waxa ay ahayd marin ay dadku mari jireen xilliyada roobka iyo meel gabaad ah xilliyada abaaraha. Waxaa jira xilliyaal loo yaqaan genetic bottlenecks, cuqubada hidda-sidaha wakhtiyo taariikhi ah oo dadku aad u yaraadeen. Waxyaalahan waxaa laga helay raadadkooda DNA-ga reer Jabuuti, waxaana ay si fiican ula jaan qaadayaan dhacdooyinkaas cimilo ee hore. Mid kasta oo ka mid ah cuqubada hidda-sidahayadani wuxuu ka tegay astaamo gaar ah, sida faro ku qoran silsiladda DNA-ga ee bini'aadamka. Laakiin sahanku wuxuu ka sii socdaa raadraaca guuritaanka oo keliya. DNA-ga reer Jabuuti waxa kale oo uu muujinayaa sawir cakiran oo ah godoon iyo isdhexgal. Kooxo yaryar oo xoolo dhaqato ah ama deegaanka ku godoonsanaa ayaa muujiyey astaamo DNA ah oo ka duwan kuwa laga helay xeebaha. Kala duwanaanshahan hiddo-sida ee ku dhex jira meel juqraafi ahaan yar wuxuu muujinayaa sida goobaha yaryar ee deegaanka muhiim ugu yihiin fahamka taariikhda dadka. Waxaa kale oo ay khilaafsan tahay fikradda ah in Afrika ay tahay qaarad hiddo ahaan isku mid ah. Afrika waa tan ugu kala duwan hiddo-sida ahaan.
Jabuutina waxay tusaale fiican u tahay arrintaas. Waxaa kale oo ay khilaafsan tahay fikradda ah in Afrika ay tahay qaarad hiddo ahaan isku mid ah. Afrika waa tan ugu kala duwan hiddo-side ahaan, Jabuutina waxay tusaale fiican u tahay arrintaas. Cilmi-baaristu ma aha mid aan caqabad lahayn. Dhibaatooyin siyaasadeed, kaabayaasha oo liita, iyo xadidaadaha dhaqaale ayaa si weyn u hor istaagay shaqadii goobta lagu qaban lahaa. Waxaa intaa dheer, xasaasiyadda dhaqameed ee ku saabsan ururinta DNA-ga waxay khasabtay in cilmi-baarayaashu si dhow ula shaqeeyaan bulshooyinka maxalliga ah, iyaga oo hubinaya in la helo is-afgarad iyo ixtiraam labada dhinac ah. Si kastaba ha ahaatee, iskaashi caalami ah oo ka dhexeeya cilmi-baarayaal reer Jabuuti ah, hidde-sidayaasha Itoobiya, iyo hay-ado reer Yurub ah ayaa sahay u noqday in daraasadaha dhowaan la qabtay ay noqdaan kuwo wax soo saar leh. Horumarka cusub ee ku yimid teknoolojiyadda la yidhaahdo Next Generation Sequencing ayaa oggolaatay in DNA laga soo saaro xitaa muunado aad u yar ama si xun u sii xumaaday. Mid ka mid ah natiijooyinkii ugu yaabka badnaa waxa uu yimid markii la baaray burbur DNA ah oo laga helay ciidda harooyin qalalay. In kasta oo aysan jirin lafdhabar ama lafo si fiican u badbaaday, haddana waxaa laga helay raadad DNA bini'aadmi oo ku haray ciidda oo ka soo jeeday maqaarka, timaha, iyo dareerayaasha jirka ee dadkii ku noolaa kumanaan sano ka hor. Habkan cusub ee loo adeegsado deegaanka DNA-ga, environmental DNA, wuxuu noqday qalab awood leh oo lagu sawiri karo muuqaalka hidde-side ee bulshooyinkii hore, gaar ahaan meelaha sida Jabuuti oo kale ah oo aan la helin xaalado ilaalin oo wanaagsan. Markay xogahaas sii kordhayaan, waxaa soo baxaya sawir cusub. Jabuuti ma ahayn keliya meel ay dadku marayeen, waxay ahayd meel istaafsi, meel isgaarsiineed oo u dhexaysay Afrika gudaha iyo Jasiiradda Carabta. Ka hor intaan ganacsi abaabulan la samaynin, dadkii hore ee Jabuuti waxay ahaayeen kuwo socda, isguursanaya, u dulqaadanaya deegaanka, kana tegaya hidde-side ay uga tagaan jiilalka dambe. Dhulkan ayaa noqday mid lafdhabar u ah sheekada aadanaha. Codadka ka imanaya dooxada Riftka weli way sii didayaan, waxay sheegayaan raadad hore, togaag qalalay oo mar noloshu ka buuxday, iyo cagihii bini'aadamka oo ku reebay raadkoodii dambaska foolkaaneedka ah. Cilmi-baarista casriga ah ayaa inoo siinaysa dhego aan ku maqallo codadkan qarsoon. Markaynu sii maqlayno, waxaannu si dhow ugu dhowaanaa fahamka sida waddan yar oo inta badan la iska ilaawo u lahaa door muhiim ah safarka bani'aadamka. Sheekadu halkaas kuma dhammaanayso. Horumar kasto wuxuu keenayaa lakab cusub, wuxuuna inoo sahliyaa in aan gaarno faham qoto dheer oo isku xidhan, kuna saabsan asalka aadanaha. Sirta DNA-ga Jabuuti waa keliya hadda oo ay bilaabayaan inay dusha ka soo muuqdaan. Jabuuti waxay ku taallaa xuduudka Afrika, iyadoo si toos ah u eegaysa biyaha badda Baab al-Mandeb ee kala qaybiya Afrika iyo Jasiiradda Carabta. Kanaalkani oo dherarkiisu yahay qiyaastii 30 kiiloomitir ayaa xilliyadii barafka glacial periods ahaan jiray meel aad uga shalaysan oo ay dadka si fudud uga tallaabi jireen. Waxaa la aaminsan yahay in uu ka mid ahaa buundooyinkii ugu horreeyey ee hidde-sideed ee u dhexeeyey Afrika iyo Yureeshiya. Falanqaynta DNA-ga casriga ah ee laga qaaday dadka Jabuuti iyo Yemen ayaa muujisay raadad la wadaago oo muujinaya kala guuradihii hore. 10 sano, saynisyahanno ayaa saadaaliyey in bani'aadamka casriga ay 2 dariiqo u isticmaaleen inay kaga baxaan Afrika, mid ku maraya dooxada webiga Niil una gudba dhulalka Shaam, iyo mid kale oo ka gudbaya badda cas ee dhinaca koonfureed. Laakiin hadda dariiqii Jabuuti Yemen ee muddo dheer lagu muransanaa wuxuu helayaa taageero weyn oo caddayn hidde-sideed ah. Waxaa la helay raado isku mid ah oo ku jira mitochondrial haplogroups M iyo N, kuwaasoo asal ahaan Afrika ku dhashay balse aad ugu faafay dhulka Aasiya. Jiritaankooda bulshada Jabuuti, gaar ahaan jiilasha waayeelka iyo dadka miyiga ku nool, wuxuu xitaa muujinayaa in ay dhici karto in dad qaarkood ay dib ugu soo laabteen Afrika, halkii uu guuritaanku ahaan lahaa mid hal dhinac ah. Soo noqoshadaas waxay jebinaysaa sheekada sahlan ee ah in dadku keliya Afrika ka baxeen. Waxay muujinaysaa in Jabuuti ay ahayd albaab 2 geesood ah oo u dhexeeya qaaradaha. Marka la isbarbar dhigo DNA-ga Jabuuti, gaar ahaan beelaha Cafar iyo Soomaali, iyo dad reer koonfurta Carabta ah, waxaa la helay la wadaagid hiddo-side aad u muuqata. Qaybaha DNA-gaasi aad bay isugu eg yihiin, mana aha isku dhexgal dhow ee dhowaan dhacay, balse waxay u muuqdaan isku dhaafyo dhacay 30,000 ilaa 50,000 sano ka hor. Xilligan wuxuu la jaan qaadayaa wakhtigii bani'aadamka casriga uu bilaabay inuu ku fido dhulal cusub, isagoo raadinaya hoy, cunto iyo badbaado cimilo ahaan.
La yaabka kale wuxuu yahay in doorka Jabuuti ee ahaa buundo uusan ahayn mid juqraafi oo keliya, wuxuu sidoo kale ahaa dhaqan iyo luqad. Daraasadaha luqadeed waxay muujiyeen in ay jirto isxidhiidh u dhexeeya luqadaha Kushitiga ee Jabuuti laga hadlo, sida Af-Soomaaliga iyo luqadaha Semitic ee Koonfurta Carabta. Isku ekaanshahaas luqadeed ee soo jireenka ah wuxuu la mid yahay waxa laga helay hidde-side, socod, erayo, iyo fikrado la gudbinayay iyada oo dad ku socdaan. Xitaa intii lagu jiray wakhtiyadii Holocene, muddadii bilaabantay ku dhowaad 10,000 oo sano ka hor ilaa hadda, bulshooyinka ku nool xeebaha waxay bilaabeen inay si joogto ah uga gudbaan badda. Inkasta oo markabkooda uu ahaa mid adag, haddana waxay awoodi jireen safaro badeed oo gaagaaban. DNA-ga labada dhinac ee badda cas wuxuu muujinayaa in safaradaasi aysan ahayn kuwa random ah, waxay noqdeen hab nololeed, waxaana si joogto ah loogu guuri jiray marka biyuhu yaraadaan. Mid ka mid ah caddaymaha ugu xooggan ee hidde-sideed waxaa laga helay DNA-ga autosomal, taas oo ah qaybta ka mid ah hidde-sideena ka timid dhammaan awoowayaasheena. Tijaabooyinka laga qaaday Jabuuti waxay muujiyeen isku egnaansho DNA oo lala leeyahay dad reer Koonfurta Carabta, Bakistan, iyo xitaa qaybo ka mid ah Iiraan. DNA-gaasi wuxuu ka sheekaynayaa isdhexgal qaaradeed oo dhacay ka hor taariikh qoran, isagoo tilmaamaya geesinimada, rabitaanka in la ogaado, iyo baahida aadanaha u qabo inuu guuro. Arrintan sidoo kale waxay sharaxaysaa sababta DNA-ga Jabuuti uusan si sax ah ugu dhicin qaybta Afrikaanka ama Carabta oo keliya. Wuxuu yahay isku dar gaar ah, mid aan si buuxda u Afrikaan ahayn, mana aha mid uun u dhigma Bariga Dhexe, balse leh faracyo iyo raadad ka kala yimid labadaba. Kala duwanaanshahan hidde-sideed wuxuu tusaale u yahay siduu bini'aadamku ugu habboonaan karo deegaanka. Reer Jabuuti waxay xambaarsan yihiin noocyo hidde-side ah oo la xiriira dulqaadka kulaylka daran iyo deegaanka cusbada badan, waxayna u badan tahay in ay la yimaadeen dad si kala duwan u kobcay oo halkan ku kulmay. Joogitaanka Jabuuti ee u dhow dekedaha Yemen iyo xidhiidhkeeda la leh waddooyinka ganacsiga gudaha ayaa ka dhigtay meel muhiim ah oo ay joojiyaan ganacsatada u kala gooshaya badda dhexe iyo qaaradda hoose ee Hindiya. Qodobada taariikhiga ah ayaa taageeraya caddaymaha hidde-sidayaasha, qaybo dhoobo ah, dhagxaan quraarado ah iyo agabyo bir ah oo asal ahaan ka yimid Hindiya iyo Basra ayaa laga helay goobaha xeebaha Jabuuti. Waxyaabahan ma aysan imaan keligood, waxaa lala socday doonyahan, addoomo, farsamayaqaano iyo macallimiin diimeed. Qaarkood way noqdeen, qaarna way joogeen, guursadeen, oo ku milmeen bulshada deegaanka. Saamaynta hidde-sidayaasha dadkii bada kaga yimid si gaar ah ayay uga muuqataa hidde-sida hagga guud Soomaalida iyo dadka xeebaha Jabuuti. Qaybo ka mid ah hidde-sidayaasha dadka xeebaha Jabuuti ayaa muujinaya xiriir la leh bulshooyinka ku nool Gujarat, Cumaan, iyo Koonfurta Iiraan. Calaamadaha hidde-sidayaashani ma aha kuwa xoog badan, balse waxay matalaan lakab joogto ah oo laga helo dad badan oo kala duwan, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qoysas ganacsi oo taariikhi ah. Baaritaanka DNA-ga hooyada, mitochondrial DNA, ayaa muujinaya in qaar ka mid ah xariiqyada hooyada ee caamka ah bulshadaas laga yaabo inay asal ahaan ka yimaadeen Koonfurta Aasiya. Tani waxay soo jeedinaysaa in dumarkii ajnabiga ahaa, ha ahaadeen xaasaska ganacsatada ama dad la addoonsaday, ay door muhiim ah ka ciyaareen samaynta dadka deegaanka. Luqadda iyo dhaqanka ayaa sidoo kale bixinaya caddayn dheeraad ah. Lahjadaha maxalliga ah waxay ka kooban yihiin erayo ama dilaallo luqadeed oo laga soo qaatay Farrisi, Carabi iyo Gujarati, gaar ahaan meelaha la xiriira ganacsiga, kalluumaysiga iyo karinta. Magacyada qoysaska qaarkoodna waxay xambaarsan yihiin raad muujinaya asal ka fog Geeska Afrika. Sheekooyinka afka ah ee beelaha xeebaha waxay xusaan awoowayaal ka yimid Mascad, Karaaji ama xitaa Bangaal, kuwaas oo yimi sidii ganacsato ama qaxooti kadibna si buuxda ugu milmay nolosha magaalooyinka dekedaha leh. Qodob aan si weyn loo eegin oo ku saabsan isdhaafsiga hidde-sidayaasha ee badda waa kaalinta shabakadaha diimeed. Faafitaanka Islaamka ee badweynta Hindiya ma ahayn mid ruuxi ah oo keliya, waxa uu sidoo kale ahaa mid dadweyne. Suufiyiin, culimo iyo xujay ka kala yimid galbeedka Hindiya iyo gobolka Xadramawt ayaa badanaa Jabuuti ka soo maray, iyagoo ku sii jeeda Makka ama ka soo laabanaya. Qaarkood way joogeen, waxayna dhiseen dugsiyo diimeed ama qoysas ilaa maanta sheegta nasab ka yimid dhulal shisheeye. Socdaalladaas diimeed waxay keeneen kala duwanaansho hiddo-sideed oo ay la socdeen dhaqamo diineed. Calaamado ka mid ah Y koromosoon, gaar ahaan faracyo ka tirsan haplogroup J, ayaa laga helay tiro dhexdhexaad ah oo ka mid ah dadka xeebaha Jabuuti.
Xariiqyadan hidde-sidayaasha ah waxay inta badan la socdaan sheekooyin afka ah oo sheegaya nasab ruuxi ah, taasoo isku xidha jidhka, biological iyo ruuxa. Saamaynta dekeddu waxay sidoo kale gaadhay caafimaadka iyo habdhiska jidhka. Saynisyahanada hiddo-sidayaasha ee daraaseeya dadka xeebaha ayaa arkay noocyo kala duwan oo hidde-side ah oo caadi ka ah Koonfurta Hindiya iyo Carabta. Kuwani waxay la xiriiraan sifooyin jir ahaaneed sida isbeddelka midabka maqaarka, u adkaysiga cudurrada iyo astaamo dheefshiidka metabolic traits. Tusaale ahaan, aleelo gaar ah oo la xiriira cudurka thalassemia oo caadi ka ah dhulka Mediteraneanka iyo Aasiya ayaa si baaxad leh looga helay magaalooyinka dekedaha Jabuuti. Soo heliddaas oo kale waxay muujinaysaa in Jabuuti marnaba aysan ahayd deked si kumeel gaar ah u shaqaysa oo keliya. Ma aysan qaabilin doonyo oo keliya, waxay qaabishay dad, hiddo-sidayaal iyo aqoonsiyo. Shabakadaha badda waxay u shaqaynayeen sidii webiyo nolosha keena oo si joogto ah u cusboonaysiiya suunka bini'aadamka ee gobolka. Inkasta oo haatan konteenarada casriga ahi ka taliyaan dekedaha, haddana qulqulka hiddo-sidayaasha ayaa weli socda. Dadku waxay weli xambaarsan yihiin raadad ka yimid Cumaan, Hindiya, Basra iyo meelo kale. Maanta dekedda Jabuuti waa mid muhiim u ah dalka, kaliya maaha dhinaca dhaqaalaha, balse sidoo kale taariikh ahaan. Mar kasta oo doon cusub ku xirato dekedda, waa qayb ka mid ah silsilad bilaabatay qarniyo hore, wakhtigii doonyaha yaryar iyo maraakiibta yaryar. Qoys kasta oo xasuusta awoowayaal ka yimid dalal shisheeye wuxuu u taagan yahay buug taariikheed nool. Dhammaan unugyada hidde-sidaha ee tilmaamaya meelo ka baxsan Afrika waxay xusuusinayaan in Jabuuti aysan weligeed ahayd xuduud la taaban karo, balse ay ahayd buundo isku xirta dunida. Markaan baranayno dhaxalka hiddo-sidayaasha badaha ee Jabuuti, waxaan ogaanaynaa in aqoonsigu uusan ku xirnayn dhul keliya. Wuxuu ku wareegaa, u dabayshaa, kuna xirmaa dekedo cusub. Hiddo-sidayaasha dadka xeebaha Jabuuti ma aha qadiim duugoobay, waa khariidado muujinaya safarro, markhaatiyaal muusanow ah oo ka hadlaya hirarkii hore ee weli ka muuqda maqaarka maanta. Dhulka Jabuuti waa markhaati u ah xuduudaha dabiiciga ah, buuraha qarxan ee waaweyn, meelaha milixda leh ee ololaya, iyo dabaylaha kulul ee lama degaanka. Waa degaan aan loo noolaan karo haddii aan isbeddel la samayn. Kumanaan sano, dadka Jabuuti waxay ku noolaayeen deegaanka adag, ma ahayn oo keliya in ay dulqaateen, balse waxay la socdaan una ekaadeen si ay ugu noolaadaan. Hidde-sidaha dadka Jabuuti wuxuu ka sheekaynayaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan adkaysi. Waa sheeko la farshaxamaystay oo laga dhex dhisay cimilada ugu adag adduunka. Cadaadiska deegaanka ee muddada dheer jira wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray samaynta jidhka bini'aadamka. Jabuuti, halkaas oo roobka sanadkii aad u yar yahay, isla markaana heer oo kuleylka dhaafo 40 digriis, xulasho dabiici ah ayaa mudnaan siisa sifooyinka kor u qaada u adkaysiga kulaylka, badbaadinta biyaha, iyo hufnaanta habdhiska dheefshiidka. Isbeddelladani ma aha qisooyin iska sheeko lagu maqlay. Waa kuwo si cad ugu kaydsan hiddo-sidayaasha, lagana dhex akhriyo hiddo-sidayaasha dadka Jabuuti ee casriga ah. Mid ka mid ah isbeddellada ugu badan ee la daraaseeyey waa midka la xiriira xakamaynta kulaylka jidhka. Noocyo hidde-side ah sida AQB2 oo ka caawiya jidhka inuu biyo kaydiyo oo yareeyo dhididka ayaa si ballaaran looga helaa dadka deggan dhulalka qalalan sida Jabuuti. Isbeddel kale wuxuu ku jiraa xakamaynta cusbada soodiyum. Jidhka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay in si qoto dheer loo hago cusbada iyo dareeraha jidhka, gaar ahaan cimilada kulul oo ay khatar tahay biyo la'aantu. Hiddo-sidayaal gaar ah sida SLC4E5 iyo NOC ayaa laga helay dadka Jabuuti, kuwaas oo ka caawiya kilyaha inay dib u nuugaan cusbada, sidaasna u ilaaliyaan dheelitirka muhiimka u ah cadaadiska dhiigga iyo shaqada unugyada. Tani ma aha aragti cilmiyeed oo keliya, waxa ay si dhab ah uga muuqataa nolosha maalinlaha ah. Dad badan oo Jabuutiyaan ah, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda reer guuraaga iyo xoolo dhaqatada, waxay muujiyaan astaamo jireed sida garaaca wadnaha oo degan marka nasasho lagu jiro, awood u leh in la xakameeyo dhididka, iyo adkaysi jirdhis ah oo la isticmaalo xilliyo kulayl daran ah. Kuwani ma aha dhaqamo lagu bartay nolol, waa astaamo jidheed oo ku dhashay jiilal badan oo la tijaabiyey deegaanka. Caddaymo hiddo-sideed ayaa sidoo kale muujinaya isbeddello la xiriira yaraanta cuntada. Meelo aan beeralay ahayn, halkaas oo cunnadu aad u yar tahay, cuntooyinkana ay inta badan ku koobmaan caano, hilib iyo badar yar, jidhku wuxuu u baahan yahay inuu si fiican uga faa'iidaysto nafaqooyinka. Hiddo-sidayaal kor u qaada kaydinta dufanka,
hoos u dhiga dheefshiidka, iyo hagaajiya maaraynta sonkorta dhiigga ayaa si ballaaran looga helay dadka Jabuuti marka loo barbar dhigo kuwa ku nool cimilooyin dhexdhexaad ah. Tusaale cajiib ah oo awood badan waa heerka sare ee sii socoshada dheefshiidka laktooska ee laga helo dadka reer guuraaga ah ee Jabuuti, halka inta badan dadka Afrikaanka ah ay lumiyaan awoodda ay caanaha u dheefshiidayaan kadib yaraantooda. Kooxaha kushetika ah ee Jabuuti deggan, gaar ahaan reer guuraaga, waxay haystaan awooddan ilaa ay ka weynaadaan. Sifooyinkan waxaa sababa isbeddel hiddo-sideed oo ku yaal hiddo-sideka MCM6, kaas oo awood u siinaya jidhka inuu sii wado soo saarista enzymka lactase. Caanaha geela iyo ariga, oo ah isha ugu weyn ee biyaha iyo nafaqada ee deegaanada qalalan, ayaa sifo dani ah u yeelatay isbeddelkan. Isbeddel kale oo muhiim ah wuxuu ku lug leeyahay maqaarka. Qoraxda Jabuuti waa mid aan naxariis lahayn, sidaa darteed ilaalinta jidhka ka hortagga fallaadhaha UV waa muhiim. Inkasta oo maqaarka madow uu bixiyo difaac guud, saynisyahanadu waxay ogaadeen isbeddello yaryar oo ku jira hiddo-sidayaasha maqaarka sida SLC24E5 iyo OCA2, kuwaas oo suurtagal ka dhigay inay si dheelitiran u habeeyaan soo saarista melanin, taasoo keenta difaac UV oo fiican iyo islamarkaana la ilaaliyo isku dheelitirka fitamiin D. Tani waxay muujinaysaa isbeddel muhiim ah oo u dhexeeya ilaalinta deegaanka iyo baahida nafaqo. Waxaa si xiiso leh loo ogaaday in daraasado dhowaan la sameeyey ay muujinayaan in hiddo-sidayaasha la xidhiira borotiinnada, naxdin kulayl, HSPs, laga yaabo inay firfircooni dheeraad ah ka muujiyaan hidde-sidaha dadka Jabuuti. Borotiinnadani waxay ka caawiyaan unugyada inay la tacaalaan kulaylka daran iyo cadaadiska deegaanka. Soo jireenka sare ee borotiinnadan laga helay dadka qaar ee Jabuuti waxay sharxaysaa sida ay ugu suurtagasho inay xilliyada kulaylka sare leh si buuxda u shaqeeyaan xagga jidheed iyo xagga maskaxeedba. U adkaysiga cudurrada ayaa sidoo kale door muhiim ah ku lahaa qaabaynta hiddo-sidayaasha dadka Jabuuti. Ku noolaanshaha meelaha u dhow badda iyo kuwa kulaylaha ah waxay dadka u dhigtaa khataro cudurro sida duumada, malaria, iyo infekshannada bakteeriyada ee biyaha cusbada leh. Hiddo-sidayaal sida DARC iyo G6PD ayaa si gaar ah loo bartay sababo la xiriira awooddooda difaac. Tusaale ahaan, allele-ka-dufinal wuxuu bixiyaa difaac gaar ah oo ka dhan ah noocyada qaar ee duumada, halka hoos u dhaca G6PD uu sidoo kale ka ilaaliyo cudurka duumada laakiin keeni karo xanuun dhiig-bax ah. Waa isbeddelka u dhexeeya faa'iido iyo halis. Qaybta 2 isbeddelka deggan ee genetiga, sheekooyinka socdaalka weyn. Isbeddelladan hidde-sidaha ah badanaa waa la iska indhatiraa marka laga hadlayo horumarka aadanaha, maadaama doodaha intooda badan ay xoogga saaraan socdaallo waaweyn ama kacaanno dhaqan. Laakiin hiddo-sidaha dadka Jabuuti wuxuu muujinayaa sida isbeddello yaryar oo joogto ah, oo aan la dareemin, ay ugu dambayn u dhali karaan bulsho si qoto dheer ula jaanqaaday deegaanka ay ku nooshahay. Isbeddelladan ma ahan kuwo hal mar dhacay, waa natiijada kumanaan sano oo waayo aragnimo iyo badbaado ah oo ay gudbiyeen dad la qabsaday nolosha adag. Intaas waxaa dheer, sifooyinkan hidde-sideed ma aha kuwo taagan ama joogto ah. Maadaama isbeddelka cimilada uu sii kordhayo oo uu wax ka beddelayo qaabka cimilada deegaanka, isbeddelladii hore ee waxtarka lahaa waxay isu beddeli karaan kuwo aan faa'iido lahayn, xitaa kuwo waxyeello leh. Kordhinta huurada, fatahaadaha xeebaha, ama faafitaanka cudurro cusub waxay halis gelin karaan isbeddellada hiddo-sideed ee lagu waafajiyey xaaladihii hore. Su'aalo cusub oo degdeg ah ayaa la iska weydiinayaa: sidee ayay u badbaadi doonaan sifooyinkii waxtarka lahaa marka deegaanka si xawli ah isu beddelayo? Cilmi-baarayaal badan oo Jabuuti ah ayaa hadda si qoto dheer u fahmaya muhiimadda ay leedahay in la barto hiddo-sidaha dadka deegaanka. Ma aha oo keliya si loo fahmo taariikhda dadkan, balse sidoo kale si looga faa'iidaysto qorshaynta mustaqbalka. Barnaamijyada caafimaadka dadweynaha, cuntooyinka la hagaajiyey, iyo daaweyn gaar ah oo la jaanqaadaysa qaabka hiddo-sidaha dadka Jabuuti waxay yeelan karaan natiijooyin wax ku ool ah. Tusaale ahaan, fahamka sida dadka deegaanka u xajistaan milixda ayaa wax ka tari kara daaweynta cadaadiska dhiigga ama qorshaynta baahida biyaha ee horumarinta miyiga. Marka laga eego xagasha guud ee horumarka aadanaha, Jabuuti waxay tusaale cad u tahay sida hiddo-siduhu ula falgalo deegaanka. Waxay muujinaysaa in la qabsiga aysan mar walba ahayn ka qaxitaanka dhibka, balse ay tahay sidii dhibkaas loogu noqon lahaa qayb ka mid ah nolosha. Dadka Jabuuti ma aysan keliya dulqaadan kulaylka, haraadka, iyo gaajada, waxa ay u gudbeen heer ay ka faa'iidaysteen, ay la qabsadeen, oo ay noqdeen dad u dhashay deegaankaas adag.
DNA-goodu waa qirasho nool oo ku saabsan xigmadda aamusnaanta ee xulashada dabiiciga ah oo muddo qarniyo ah ku shaqaynaysay sidii ay caqabadaha ugu rogi lahayd adkaysi. Qaybta 2 Hiddo-sidaha nolosha iyo falsafadda badbaadada. Gudaha hiddo-sidahan badbaadada, waxaan ka helaynaa khariidad aan muujinayn keliya halka aadanuhu ka yimid, balse sida uu u noolaan karo. DNA-da dadka Jabuuti ma aha oo keliya xusuus, waa hagaha nolosha ee muujinaya sida ay bulshooyinku ugu noolaadeen duruufo adag oo ay ka dhigeen il-tamar iyo adkaysi. Waxay inoo sheegaysaa in fahamka sheekada dadku uu ka bilaabmo fahamka dhulka iyaga sameeyey. Markii Islaamku ku fiday Geeska Afrika qarnigii 7aad miilaadiga, ma uusan keenin oo keliya diin cusub. Wuxuu kaloo watay dad, dhaqamo, iyo xidhiidho cusub. Jabuuti waxay noqotay meel ay ka gudbaan suufiyiin, culimo, iyo muhaajiriin ka kala yimid galbeedka Hindiya, Xadramawt iyo meelo kale. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi way joogeen, waxay aasaaseen duqsiyaal diini ah ama qoysas cusub, kuwaasoo maanta leh awoowayaal si toos ah ula xidhiira dhulal fog. Socdaallada diimeed waxay keeneen kala duwanaansho hidde-sideed oo la socda dhaqamo iyo caqiidooyin cusub. Qaar ka mid ah hiddahay koromosoomka ee lala xidhiidhiyo sooyaalka wadaadnimo ee Islaamka, gaar ahaan laamaha qaarkood ee haplogroup J, waxay si dhexdhexaad ah ugu jiraan dadka ku nool xeebaha Jabuuti. Xididooyinkan badanaa waxaa la socda sheekooyin ku saabsan awoowayaal suufi ah, taasoo isku xidhaysa bayoloji iyo barako diineed. Saamaynta dekeddu waxay sidoo kale gaartay caafimaadka iyo qaabdhismeedka jidhka. Cilmi-baarayaashu waxay ku arkeen dadka xeebaha Jabuuti qaar ka mid ah hiddaha laga helo Koonfurta Hindiya iyo Carabta, kuwaasoo la xidhiira awoodda habdhiska dheefshiidka, midabka maqaarka iyo iska caabinta cudurrada. Tusaale ahaan, aleles la xidhiira cudurka thalassemia oo caan ku ah deegaanka badda Mediterranean iyo Koonfurta Aasiya, waxaa laga helay tiro yar oo ka mid ah dadka magaalooyinka dekedda. Waxaas oo dhan waxay muujinayaan in Jabuuti aanay weligeed ahayn meel si aan micno lahayn loogu imanayo. Waxay ahayd albaab laga galo dad, hiddo iyo aqoonsi. Shabakadaha badda waxay ahaayeen sidii webiyo, nolosha sida joogtada ah u cusboonaysiinayay dhismaha bini'aadamka ee gobolka. Maanta, in kasta oo konteenarada casriga ah ay buux dhaafiyeen dekedda, haddana qulqulka hidde-sidaha wuu sii socdaa. Waxa uu maraa jidhka qoysas leh xusuus ku saabsan awoowayaal ka yimid Cumaan, Hindiya, Faaris iyo meelo kale. Maanta dekedda Jabuuti waa muhiim, ma aha oo keliya dhaqaale ahaan, balse sidoo kale taariikh ahaan. Mar kasta oo markab yimaado, wuxuu qayb ka yahay silsilad soo bilaabatay xilligii doonyaha iyo karafiilada. Qoys walba oo leh sheekooyin awoowayaal ajaanib ah wuxuu yahay maktabad nool oo muujinaysa isku xirnaanta caalamiga ah ee magaalada. Xitaa hal xabbo oo DNA ah oo tilmaamaysa meel ka baxsan biyaha Jabuuti waa xasuusin ah in meeshani weligeed ka weynayd xuduud. Waa buundo. Gunaanad. Markaan baranayno dhaxalka badeed ee hiddo-sidaha Jabuuti, waxaan ogaanaynaa in aqoonsigu aanu ku xadidnayn dhul. Wuxuu dul sabayn karaa, u safri karaa, oo ku xidhan karaa dekado cusub. Hiddo-sidaha dadka xeebaha Jabuuti ma aha raaf taariikheed oo keliya, waa khariidado badeed oo sheekooyin badan wata, sababta aadanaha u sii jirayo, iyo sida uu badaha ugu noqdo gurigiisa.